السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإن سلامي إنا وذفي عندنا رجينا عاو محاميس كنو صارن محاوذا محاسو أخري محاربة إنا أخري محا قبصدي إنا إلا أغاتينا روا أن دير جلنسي يوسين قطو إذين كنا سيدو كليتو مركا عاو إنتا سيحانين كور هل ساعة إنتا سيحانين كور وحاربة إنا سمايو إنا 10 أخريا روا laba hadaf aa leeyahay waxaa rabaa inaa akhriyo hal jabtar oo hematology ah iyo sidoo kale cashirka maanta aa soo qaatay inaa briefly inaa ku laabto aa rabaa waxaa sameeyey saacadda waxay ahayd 3 saac iyo 15 daqiiqo jabtarkeena bilaabay asagaa akhrinoya marka kale laabo akhrinoya fahana marka hore kasoo qaatay maalmihii lasoo dhaafaa faan kasoo qaatay video lasoo fiirsaday cashir daacad markii la diyaarinayo taqaana hadirtan waxaa rabaa inaa ku ordo fahantay kal ilaab macnaha wixii fahankii waa heystaa buugina akhriyo detailskii hore ugu socdo buuga marka waa cashirka aa soo fahantid wixii aa soo qoratid ama faham fiican aa ka haysatid oo textbook aa u maatid oo ku ordi kartaa marka hadirtan aniga ku ordooyaa oo akhrinoyaa adiga maxaa qabsatay maxaa samaysatay haddaad waxba akhrinin caajiska ka kac wax akhri hal saac intaad seexanin ka hor markaa wax akhrisid oo soo kacday haddana salaada subax haddana cashirka aa ku laabatid oo haddana maalmeer markii laga joogo kadib haddana cashirka aa ku laabatid cashirkaas wuu kuugu dhagaa maskaxdaada meesha u fiican u tagaa memory step by step mid kasii dambeeya wax markii lagu celceliyo maskaxda ku dhigtaa la mogtaa laakiin markaa seexanaysid oo hurdo isku diyaarinaysid wax yar ka horba ama hal saac bar 2 saac wixii aad markaas u qorshaysid hadaa wax akhrisid markaa seexanaysid maskaxdaada maxay sameynay waxyaabihii aa akhrisay wixii kugu dambeeyay aa samaysay waxay ku sameynay ay kala habeynay qolal u kala sameynaysaa informationka meel ku kala riday marka wixii oo kugu dambeeyay adoo ku qarwaayo marka qaar waa arkaysaa Soomahan sasaamo maskaxda u shaqaysaa marka intaad seexanin ka horne dhag wax akhris ku tuuro markaa soo kacdid kadibna oo salaad subax ku aadinta maskax fresh ka taane ayadana sidoo kale anigu waxaa ku xasuustaa hadda markaa soo weynaado dadka markay soo weynaadaan maaragtay inkastoo isbedelayaan laakiin markaa soo baxay oo aniga macnaha waxbarashadii cusbeed ayra dugsi dhexe dugsi sare ahaa maxaa sameyn jiray cashirka maalinkaas markaa soo qaato la fariisan jiray cashirka maalinkaas la soo siiyo la fariisan jiray markaas si fiican u akhrin jiray haddana subaxii haddana habeenkii akhrin jiray cashirka maalinkaas la soo siiyo kali laa u barin jiray maskaxdeeda cashirada qaar oo dugsi dhexe ku soo qaatay ama dugsi sare ama dugsigayga hoose xataa soo qaatay maskaxdeeda ku dhigan yihiin maxaa keenaya waxaa sii tarkiisaasi attentionaasi ahmiyadaasi waxaa sameeyaa cashirkii macnaha qaab oo xamaasad leh u diyaariyay marka haddana markii la soo weynaado wax badan la fahmaa duruufo badan qof furmayaan waxyaabo far badan qofka maskaxdiisa inay ka fikirto ay ku imaanay laakiin meesha mar walba waxaa ka maqan dadaal iyo inaa isku wadid wadada truuska inaa isku wadid inta la seexanin ka hor caajiska iska jaf maxaa adaa shaax inta cabtido kale oo hurdada ka tagayso kale dadka sameeyeen laakiin xasmaysa hal saac akhris 20 daqiiqo akhri 5 daqiiqo break qaado haddana 20 daqiiqo wax akhri 5 daqiiqo kale break qaado si seexan markaas ka soo kacdid adigoo macnaha waxa ku galaysa dhiirigelin waxa qabsatay waxa samaysatay hay haddana sameey haddana mid kale sameey sasan nafta lagu wadaa marka aniga inta seexanin ka hor maxaa sameeyay hal jabtar oo waxa akhrinoya oo hematology wali marka cashirka akhriskiisa wadaa waa ku socdaa cashirka igu socdaa
alxamdulilah. Marka isla socono wax isla akhrino is dhiirigelino fahantay aniga laftirkeyga hadda waxay ii tahay dhiirigelin ay ii tahay adina sidoo kale sameey inta seexanin ka hor wax akhri wax qabso caajiska ka kac maxaa la dhahaye shaydaanka iska naar wax akhriska hadda maanta hadaa ka caajistid berito walwal iyo shalayto iyo waxyaabii dhameed aa wada naqaan anu dhahayaan midna waxaa waaye shalaytadaas midna waxaa waaye waqti dhow ay ku qabsanay waa marka imtixaan galaysid midna waxaa waaye waqti dheer kadib ay ku qabsanay ama kuugu imaato maxaa la dhahaye ayadoo practical nolosha ha ku soo wajahdo casharadii hore usoo aaday usoo akhrisatay ama usoo baratay ama imtixaan ahaan usoo baratay marka aqoonta mar walba muhiim waa aqoontan wax qalbiga kugu haro waaye inaa wax akhrisid aad iyo aad muhiim u tahay ilaahay wixii aan akhrino qalbiyadeena ku dejiyo hana noo xifdiyo mar walba wax akhrisid kadib waxaa jirta duco la akhristo ducadii jirta hadda maskaxdeena ku jirto laakiin macnaheeda xasuusta ahayd ilaahu waxa la ku dhiibtay ilaahu ihay marka u baahdana ii soo celi macnaha xadiiska saas camal inuu ahaa ducada saas camal ahayd marka mar walba ilaahay tala saaraysiis meesha kama maqno dadaalka meesha kama maqno maskaxdaana waa hibo ilaahay qof wax dheer ma jiro laakiin ilaaha qof walba qofka kale wax dheeraysiiyo oo fadligiisa wax dheeraada ka siiyo marka maskaxda mar walba waxay ku fiican tahay in la daba taagnaado in la daba socdo la riixo haddii kaleeto waa iska soo yaraanay awoodii wax ku qaban lahayd waa iska yaraanay marka haddaadan ba hal mar wax badan inta sameyn pressure saas saari karin oo nafsada ku siimayso waxaa sameynaya tartiib in wax akhris tartiib aa isku bartid marka already hadda jabtarka waa dhameeyay alxamdulilah subaxina waa ku laabanaa insha allah markalena waa ku laabanaa mar walba wax loola laabto mar walba ay fududaadaan insha allah biidhnillah hadan waxaa sameynaa cashirka maanta aa soo qaatay cashirkii maanta aa soo fahmay fahankii macalinka aa kasoo qortay aa ku laabanaa fahankii akhrinaa informationka si dhaqso maskaxda ugu dhagaan aysan u kala fakanin aa u xasuusto sheekada macalinka iyo qaabka wax akhrinaya iyo qodobada muhiimka ah iyo waxaas dhan u xasuusto saasaa sameynaya dartaan marka wayba isku dhamaatay alxamdulilah 45 daqiiqo ayay ugu soo qaadatay inaan soo akhriyo halka jabtar oo hematology ahaa haddana wayba iska dhamaanay waxaa 15 daqiiqo dhameen aa kan ku dhameynaa kadib waa seexanaa insha allah habeen waana idin rajeynaa hurdo wacan yaa wax akhris aa isku ognahay marka caajiska ka kac shaydaanka iska buri wax akhriso sawir mar u gaarto maskaxda kuugu fido himilo iyo hamiisa u yeelatid marka saasaan ku dhaafaa maca salaama